Soomaalida hadda waxay ku leeyihiin Astaan TV dad xun waay aniga goortan sheegay ma dhaweyn in dadkani ay yihiin dad jecel hantida dadka Soomaaliyeed ay ka qaadaan isla lacagta inay dadka shacabka Soomaaliyeed ku gumeystaan waliba iyagoo u isticmaalaya xeer ka baxsan bini'aadanimada inta aan xog ahaan u hayo iyo inta markaan Soomaali joogaan indheyga ku arkay aqliga bini'aadanka ma galay war aniga dhacdada igu yaabka badneed waxay ahayd wiil xanuunsan oo turjumaa ahaa intay tiibisha ku dhacday ay dhaheen cudurka inaad qaadsiisid ma rabtid markaas wuxuu yiri bal shaqada waa ka tagaaye dib male xanuunkan ilaaha keenay wax un ii garta shaqadiina waa ka buriyeen wax daawo ay siiyeen male xanuunka u dhintay waxa kaaga sii daran gabar hadda u shaqeyn jirtay filmaanta la jiljili jirtay mid ka mid ah managerada wuxuu yiri si aan ku siisto markaas ay tiri maya sharaftay waa ka weyn tahay shaqadii gabadhii sida loogu buriyay ka war waxaaba kaaga sii daran baabajay isagoo xanuunsan intuu isbitaal galay waa ninka dadka caanka u keeni jiray waa ninka aniga naftirkeyga xataa markii ugu horeysay igeeyay qof walba caan ah keeni jiray TV-ga saameyn u yeelay markuu xanuunsaday biilkeeba ka jarteen ruf ruuxu aniga waa xanuunsaday bini'aadana ahay wal hal isbuuc xataa ma jirto maya waa laga jartay adika halkan wiila la ordaysi waxyaabaha ka daran waxay ugu sii daran dooli mid la dhihi jiray Allah u naxariistay turjubaanta ku jiri jiray markuu dhintay aabiisa waxay dhaanay familigiisa carruurta annaga kula korineen iyagoo iska dhigaya platform weyn inay haystaan dooli markuu dhintay odaygii asoo waayeel ay waardiyay ku direen iriday ka xirteen asagoo le war waxaan bini'aadanimo maxaa wax ugu balan qaadeen wiilkii idin shaqeyn jiray dadka astaanka shaqeeyaan kor laga wada fiirna qofka hadli karta male ama shaqada laga buriyaa leeyahay waa dad jecel bini'aadanka inay ku takrifalaan iyagoo lacagtooda qaadanay war $8 ruuxa bini'aadanka uu ku siinaa wuxuu kugu siinaa kambani Soomaaliyeed inuu horumariyo adigana lacagtiisa ku cadaabayday waxa kaaga sii daran xataa istizaa iyo kibir meel ay ka gaareen wiil waxaa jira astaan u shaqeyn jiray qaybta turjumaada subaxii ilaa 5 galabnimo u shaqeynaa 5 galabnimo markii laga gaaro mid ka mid ah managerada oo ku jira qaybta turjumaanta ayaa wuxuu dhahay timijareeyagana ka shaqeey waa nin subaxii imaaday 5 shaqada ka baxay haddana 5kii waxa la leeyahay timijareeyay ka shaqeey markaas uu subaxii shaqada markuu ka soo daahay wariya maxaa ugu soo daaday Allah war bini'aadana aniga laba meelan ka shaqeyno markaas waxa la dhahay wariya adoonkeyga inaad tahay ma ilowdi markaas wuxuu dhahay adoon adiga kuuma ilaahan waa shaqada laga buriyo ka war wiilka hadda masaajidka ku xariisaya ruuxaasi wax xaraamiyaal ah haddana waxay leeyihiin boqolaal qof oo caan ah oo platformya haysta iyaga u nacamleey international rufiyan oo marka dadka Soomaaliyeed wax laga qabto waa damiirkooda waa dhintay